maalinka ra'iisul wasaaruhu madaxweynuhu magacaabo in dalka awoodiisa min raas caseer ilaa raas kamboni mas-uuliyadda amni iyo mas-uuliyadda guud ay dusha ka saaran tahay ra'iisul wasaaraha. inta ra'iisul wasaaraha la magacaabin madaxweynaha ayaa iskale, laakiin maalinka la magacaabo ra'iisul wasaaruhu madaxweynaha waxa u soo haraya bis laba shay: inuu yahay madaxweynaha astaanta qaranka, inuu yahay maxay ahayd taliyaha guud ciidamada qalabka sida, inuu yahay mas-uuliyadahan kala dhan oo soo haray waa mas-uuliye lala wadaago oo keligiis oon go-aan toos oonu gaari karin. Okay, marka ay xaaladda halkaas maraysa, haddii aan u soo gudbo ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaare waxaa mas-uul ka tahay ummadda Soomaaliyeed min raas caseer ilaa raas kamboni. amnigooda adiga ayaa mas-uul ka ah, adig ayuuna ku saaran yahay. maxaa laga rabaa marka? maadaama doorashadii dheeraad lagaaga dhigay oo doorashadii lagugu wareejiyey, madaxweynihii doorashadii kugu wareejiyey, in aad garatid mas-uuliyadda aad leedahay aanay cidna uga heebeysanin, adiga oo dastuurka dhinacana walaaxanayn, awoodaha dastuurka ku siiyey qaadanaya. waxa ayaan darro ah madaxweynihii wareejiyey xilka, mas-uuliyadda ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha inuu doorasho qabto, inuu amnigii ka shaqeynayo inuu ku fargeliyo wasiirkii shaqadiisa ay aheeday amniga uu ku carqaladayo. waa ayaan darro. marka waxaa leenahay ra'iisul wasaare, noqo qof garanaya mas-uuliyadda saaran. waxaa mas-uul ah ka tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaa xil kaa saaran in aad doorashada si toos ah u qabatid. midda kale, hay-adaha amniga ee adiga aana kaa amar qaadin waxaa xaq u leedahay, dastuurkana kuu baneeyey in aad xilka qaadis ku samaysid, aad magacaawdid saraakiil adiga ku hoos yimaada, kadibna aad howsha doorashada iyo ilaalinta xildhibaanada dooran lasoo doortay iyo kuwa aan la dooran bay shacabka Soomaaliyeed amnigooda aad sidaa ku sugtid, aad ku ilaalisid inta ka dhamaystirmaysa doorashada. marka ra'iisul wasaare, marka waxaa lagaa doonayaa in aad garatid mas-uuliyadda ku saaran, inaad garatid oo aad xaq u leedahay, dastuuriyanna aad u leedahay. midda kale aad rabo waxay tahay inaan kula wadaago hay-adda NISA waa hay-adda ummadda Soomaaliyeed Soomaalina ay ku faanto. hay-addu qalad ma laha, askarta ka shaqaysana qalad ma laha. cidda qaladka iskale waa saraakiisha magacaaban ee sida guracan loo adeegsanayo. taana adiga ayaa xaq u leh in aad xilka ka qaadid, aad u magacaawdid saraakiil u adeegaya ummadda Soomaaliyeed, kana shaqeynaya sidii doorashada si nabadgelyo ah iyo amniga ay ku dhici lahaaday, dalkaana uu tiiha iyo iska dawareega ugu bixi lahaa. haddii aan usoo noqdo su-aashaydii koowaad ay aheeday, yaa waa cidda diidan dalkan inuu doorasho aado? wax qarsoon ma aha, way iska caddahay. dalkan waxa diidan in doorasho aado waa xukuumadda xilkeedii dhammaaday iyo kooxda ay wadato ee la magac baxay nabad iyo nolol. kooxdan waxay ku caanbaxeen carqalado. waa aragteen Puntland waxay ku sameeyeen, Puntland waa carqaladeeyeen, waxay ku sameeyeen inay doorashada ay carqaladeeyaan. laakiin waxaa aada ugu mahad celinayaa madaxweyne Dani iyo cuqaasha in ay garteen dantoodana ka shaqeeyeen, halkaasna ay ka soo baxeen dad xildhibaano ah oo danta shacabkooda iyo deegaankooda u adeega.
bal fiiri tusaale aan ku siiyo ra-iisul wasaare dhammaan ummadda soomaaliyeedna tusaalaha qeyb ay ka tihiin axmed madoobe maantay cid ka xigta farmaajo ma leh waa ina adeerkii wuxuu ka hor istaagsan yahay maamul dhan waa madaxweynihii jubbaland gobol dhan ayuu saas ugu haystaa waay u haystaa mis weydiisan su-aashaas ujeed kale ma aha halkaa waxaa ka soo baxaya ciidan maxay ahay halkaa waxaa ka soo baxaya xildhibaano asiga taabacsan wax kale intaas uu sameynaa ma jirto hadafkanu muxuu yahay wax asi taabacsan inay halkaa ka soo baxaan marka ummadda soomaaliyeed waxaa raba inaa idinla wadaago ninba dadkii asi u xigay waxba u ogoleen taagan aniga xukuumaddii ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhigay koox gaar inay leedahay ummad soomaaliyeed uma adeegayo dad soomaaliyeedna ma wado ummaddaas ayaa waxaa laga rabaa ra-iisul wasaare inaa ummadda dhaafisid doorashada xur iyo xalaalna aa qabatid waa koox ku caanbaxday dowladnimadu inay dadka ka xigsadaan aan fahansaneynba dowladnimadu inay tahay is-ogol bulsho isku tagtay iyo nidaam lagu wada heshiiyey in ay tahay dowladnimadu dad aan fahansaneyn wey ooba dowladnimadii ummadda kale u malay inay ayaga ka xigaan marka ilaahay waxaa ugu baryaynaa ayaga in uu garansiiyo dowladnimadu inay tahay mid shacabka loogu adeego shacabkana wada leeyihiin siyaasad lagu wada heshiisan yahayna ay tahay dowladnimadu taa ayaa ayagana maxay ahayd u rajeyn inay gartaanna waa filaynaa marka ra-iisul wasaare noqo qof maxay ahaday sharciyadiisa garanaya u malayn maayo inaad noqonayso qof sharciyadiisa garan waynaya inaad noqonayso u malayn maayo marka noqo qof sharciyadiisa garanaya hay-adaha amniga hoos yimaadaan hay-adaha ka amar qaadin ku sameeyey xilka qaadis magacaaw dad adiga ku hoos yimaada kana shaqeeya sidii doorashadan si dhaqsa ay ugu dhici lahaday dalkaana uga bixi lahaa tiihan iska daba wareegan iyo rafaadkan marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaa ku leeyahay ra-iisul wasaare hawsh adagaa kuu taallo dalkan adaa mas-uul ka ah doorasho u horseed si u dhaqsiyaha badan ummaddan amnigooda iyo mas-uuliyaddooda aday ku saaran tahay ra-iisul wasaare cid kale ay saaran tahay ma jirto adaa ummadda ka mas-uul ah maalinkii lagu magacaabay oo ra-iisul wasaare lagu magacaabay ayay ummaddan mas-uuliyaddooda ku fuushay kana soo wareegtay madaxweynaha sharciyan baa u leedahay xaq baa u leedahay dastuuriyan baa u leedahay marka ha noqon qof garan waayey sharciyadda uu xaq u lahay isku day inaad sharciyaddaada garatid waxaa ku leeyahay la shaqay hay-adaha amniga gaar ahaan wasiirka amniga arrimaha gudaha intan kale oo maxay ahayd isleedahayna way ka maxay ahayd amar diidadana awood baa u leedahay inaad xilka ka qaadid u magacaadid cid adig ku hoos timaada marka intaas ayaa maxay ahayd kusoo gabagabeynaya ummadda soomaaliyeedna waxaa leeyahay cidda diidan in doorasho ay dhacdo waa kooxdan dalkii iyo dadkii ka xigsanaya dowladnimadu inay ayaga si gaar u leeyihiin kooxdaas baa diidan cid kaloo diidan ma jirto dalkan doorasho u aadaya nasiibkooda ha qaadaan marka waxaa leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaa waaye ramadaan kariim